عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في وناكسن أصحاب تقالي وحب نيتها وناكسن جنالك أعدق مقليسا وروضة عبد الرحمن خفقا لها الله ولا شين روضة عبد الرحمن أصحابتي قيمها بدن آذا يدوها سنتين لمانتينا واني قم هاد عدنا سيدا وناكسن وديسا بالقريسين أديسا بالقريسين وديلا سعتين وديلا ورقبتين جنالك وحرنتي واني قم هاد عدنا يا waxaa mahadis kala markood Allah subhanahu wa ta'ala markii xigtan walaalay qaal adinka ayaa mahadis kala way janalkii wuxuu dhumaanta u tagay heer walbalika ayaa gaarsiiseen waxaa rajeynaa walaalay qaaliga ah janalkii inta ku cusub oo hore ila joogtay aan naga tagin inta nagu cusub aad soo booqan doontiin walaalihiina kala Soomaali u share gareey doontiin walaalay qaaliga ah hadii ka maanta anaga ah heer igaarsi heer anigu ma gaari karo mana isgaarsiin karo saabtiida qiimaha badan aad baan jeclahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala jacayl ka dadiga jeclaado حق يعني جعل دمانتين حني one love كاس أصحابتي قيمها بدن أصحابتي القارئة عاو حني وذا قصة أو كل عذاب جوار ولا شيء نصوماليات مرة ولا شيء صومالنا مشى مرة على كشيء جوادي وحيلة ده هاي المال محتوى يا وحنا سبنا ويل صوماليات ويل كاسو واحد بدن نازل السعودي مدري نوقات واحد نازل السعودي مدة 6 سنة أنت كدي ويلكي وحكون ولا مركز نازل السعودي أصبرنا نخرجوا وفور أفريقيا waxaan iska baray aalada lagu sheekaysto internetka qaasatan iimaha ayaan iska barnay leedahay kadib aan isla soconay wax badan 3 sano ay xiriirkeena qaatay leedahay wiilkii asagoo maqan wuxuu joogay South Africa ama Koonfur Afrika saa taqaaniin walaalay qaaliga ah dan qisada si wadaashii Soomaaliyeed waxay leedahay wiilkii maalmaha kamid ah wuxuu imaaday xamar adiga markaan sida socon 3 sano iyo hal bilood bishii labaad dhaxdeeda ayuu imaaday leedahay inta kadib wiilkii wuxuu ka codsaday nikaax hoosaad anigana haydir waan ka aqbalay maadaama aan xoog u jeclaa asagan igu sheekeeyeen oo jecel yahay laakiin jecelkiisa markaan ogaaday xaqiiqada dambe ee noqotay mid been ah kadib intaas waxaa dhacday yeelada walaashii Soomaaliyeed inuu hadana ku imaaday ka bacdi oo luuq email mercy oo keena anigana aan xeexay arintii aad uga shalaayay كل شيء وحران لكن وحول بويدع قدر الله يكون دعين وحيل هذا ولا شيء Soomaali markii dambe waxaan ka codsaday inuu iska furo maadaama aniga laab iyo luqluq aan ku arkay familkeygan aan u sheegi karin waxay leedahay wala shay Soomaali wuxuu ugu xujiyay maadaama aan furo aniga aan ka codsaday shalna maxay haytay nikaax hoos aan aniga asaga dhaxdeena oo ismeersan ama qomsirsa u taqaaniin ama meher hoosaad lacag $400 ah inaan dhiibo aniga waxaan dhigay $400 ma haystee maxaa xal ah markaas waxay leedahay gabadha walaasheen Soomaaliyeed dhaga waxa ay xirnaa 6 garaan ah dhagihii aan gaday tiri marka waxba kale yahay anigoo yaaban oo cuntada ka go'ay familku waxa u sheegin oo fakirsan oo ay tiri aniga dhanbasaan ah aan sheegi karin subhanallah wallahi waa aad iyo aad ayaan ula yaabay runtii waxaan dhaw walaashii maxaan taas ku kale waxay tiri jacayl aan qabo dartiis runtii jacaylku waa shay aad u xun laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala jacayl noocaas loo sameeyay gelin oo maartay nala kulmi kaas oo na gelina ama Allah subhanahu wa ta'ala ka mangalayna wiirish Soomaaliyeed xaq Allah tuso gabadhii waxay leedahay dhagihii markaan gaday oo hal kale ahayn ninkii xujada noocaas u soo hordhigay waxay tiri lacagtii aan siiyay oo waxay tiri haddana waxay tiri lacag soo darkareed oo haddana $400 wax ma ahan $600 sidaas kunku ku dhiib waxaan subhanallah walaal anigu waxaas ma haystay intii dhaga aan yaro haysto anigu saan ku gatay ilaa oo raaciga ka adootay iyo wixii waalidkay siiyay waxay walaalo oo jaamacad aan ku dhiganaa ayaan maxay haytay aan ku dhiibo walaalo maxaa ka qaldan intaas kadib waxay leedahay gabadhii sidii $400 iga qaatay warkii anigu badan walaalihii qaaliga kadib lacagtii waan siiyay tiri sidii maxay tiri ugu furay subhanallah waa qiso xanuun badan walaalihii qaaliga ah waa qiso ku cibra qaadasho mudan waxaan leeyahay gabar walba Soomaaliyeed sharaftaada ilaasho nin aadan isku hubinin naftaada ku aaminin nin aan waalidkaada kugu ogeyn mehersanin oo nikaax hoos iska ilaali gabar walba Soomaaliyeed waxaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala calafkeeda soo xalaal ah waxba uu haysan hadduu wax dheef waa la helay oo jecel oo daacada Ilaahay u sahlo wiilasha Soomaaliyeed waxaan leeyahay iimaanka Allah galiyo walaalihii wiilasha Soomaaliyeed meeshan gabar walba Soomaaliyeed waxaan leeyahay Ilaahay wax khayr qabo ha la kulmiyo والله آذان يقصص سبحان الله وحلق سبحان الله استوى لا لي قالق أو حرجينا قصص عنيتي إنا محيث عبر قادة دونتان السكول يعني إيابسي وحبضنا هي يعني إنا سوقت بي أن جعلاي بس أن جعلت إنا عاوني سوقت بيو أصحابتي ذا قيمها بضن آذان يعني جعلها وهدمانتي الحوكم يعني جعلها وحن الله سيداس إني ودليو السلام عليكم ورحمة